dhulkan quruxda badan waxa weeye waa meel baadiye oo dhidin miyaan dhaha waa aaga dhidin qiyaasta waayadan waxaan ku jirnaa inaan dhulka maaragtay aan marmarno oon soo bandhigno maaragtay dhulka quruxdiisa bal fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa mahadsan dhulka waa wada dhir in yar haddaad socoto waxa weeye waad yaabaysaa waxa dhir ku taalla dhirtanu inayna maaragtay inkastoo meelahan geeda waaweyn ayna lahayn haddana inay dhirtanu sidan dhulka ugu xasisho waxaa qayb ka ahaa ilaahay ha ka raali noqdee jamhaddii ciidankii xoreynta ogaadeenya oo dhirta ilaalin jiray maaragtay mayna dhici jirin geedahan waaweyn in la jaro in geed qallalan mooyaane geed qoyan xaaba laga dhigto dhulka in la xaalufiyo dhowr iyo 20 sano ee hardanka ama dagaalka uu socday waxaa lagu guuleystay ciidanku waxay ku guuleysteen inaan geedaha la jarin aad iyo aad baa loogaga cabsan jiray runtii meeshan baadiyaha arkaysaan iska cidlada waxa weeye waxay leedahay way wada oodanta bal fiiri oo wada seeraysanta ilaahay amarkii badan dhul baa dadkii lagu itixaam marka waxa weeye dhulku waa barwaaqo waa iska cidla weliba halkaas waxay ku tusaysaa sida dhulkeenu macnaha uu u ballaaran yahay iyo sida dadku ay u yar yihiin xataa dunyadu u yar tahay maaragtay dhulku uu iska cidla u yahay muddo 10 kilomitir ka badan baan soo socday dhulku waa iska cidla bahasha yar maxaa la dhahaa umba ka dhex qayliyaysa alxamdulillah ilaahay yaa mahad iska leh keligay baa wadankan iska marmarahay iska jooga waa kaas weli geedkii xagarka waa qoyan yahay geedkii waxaa la yiraahdaa geedkii waxaa la yiraahdaa kanan garanaya waa murjaan kulli waa ka weli oodihii baan iskaga dhex jirna ilaahay amarkii badan marka ummadda aagan degta waxaan dhihi lahaa ilma reer dhulku inaga badan dhulkan aad un seeraynaysaan ee laydinku itixaamo dhulka haynaga seeraynina inoo daayo xoolo haynoo daaqaan dhulkii waa laydinku itixaamay ما شاء الله خير bari waxaan xusuustaa intaan maalin subaxaniya rag kale akhyaara intaan magaalada wareer ka soo kacnay meelun aagan aan u malayn muddo dheer markaan soo soconay dhowr saac aagan meelaan u malayn oo baadiyahana yaa waxaan ugu nimid libaaxi cabdikariin sheekh muuse ahaa oon meelahan ku ballansanay barigan dee aan socon jirnay marka meeshii hadda haddaan garanahay geedkii waaba tegi lahaa ilaahay amarkii laakiin geedkii baan garanayn aagan unbu laakiin kolley ahaa bal isagii baan weydiinaynaaye war meeshii maalinkii adoo waagaa nin yar buu ahaa oday muusan ahayn cirro muusan lahayna waagii adoo dhallinyarada ah oo qoriga iyo kitaabka haysta geedkii aynu berigii ku kolannay niyahu bal geedkii haddaad garanayso aaggu ahaa soo sheeg baan dhihi doonaa insha allahu tacaala هذه أدوات مهسنتي